waqooyi bari TV. garaad Saleebaan garaad Maxamed oo kamid ah isimada iyo waxgaradka ugu tunka iyo miisaanka weyn deegaamada waqooyi bari Soomaaliya ama deegaamada loo garan og yahay SSC ayaa waxa uu maanta baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka gobolka Cayn waxa uuna ugu baaqay inay nabadda qaataan waa sida uu garaadku hadalka u dhigay. bismillaahi raxmaani raxiim. الله سلام يا صحافة يوجيل شو سلام يا سلام كبعد الواحد يا باغنا بديت باغ سعود ريو خير هغر يهيئ وشيطان كبع شهين يو وهوشو دخات اللي يتشوغو إبا اللي يتشلي باغ هودر يا نبرا ولا بوتشوغو باغ سوغي ياي ورنما يو هيئ يغير هغر ويخوة ياري قد نفسه كانتين يجيك نفسه كانتين ونهاية دوارك الجوجية طال خير لما قادوا كقدال نبض ugu baaqay garaadku labada beelood ee walaalaha ee deegaanka gobolka Cayn wada degaa ayaa waxa ugu baaqay in inta iyagu is arkayaan ay cadawgooda fiiriyaan deegaankooda iyo dhulkooda haysta waa sida uu hadalka u dhigay garaad Saleebaan garaad Maxamed طال قرب ما انتهي cadawga dhulkeena haysto ku xeeran waarki lahaa أنا وحيرتي لو سكت فلي لو سكت شيء ويا ورانا كيف تفضيها وكان هايستا يقول سنة يا أنا استشوفه وكان كوعيار ده كان كوعيار ما تقول لنا يا أركب إنسان أبغى يوم ده كيو السكر بقول كيو ومرافق الله هايستا هذا ما عاد غلاده ما عاد غلاده أنا وصل عنا هيا garaad Saleebaan garaad Maxamed oo si wata baaqiisa nabadeed ayaa ugu baaqay labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka gobolka Cayn waxa ugu baaqay garaadku in si socodka colaadooda ay sababin inuu yimaado deegaanka maadaama uu sheegay garaadku inuu salaxaadkiisu dhameen taasina ay dhib ku tahay imaanshaha deegaanka colaadu ka socoto nasooligayna anigu waa waqti libalay gooyay ma socon karo هذا جوجو ويدان وسولو جيسان وهذه مايا في دولة جوجة